dhalinyaro Soomaaliyeed oo si iskooda soo xilqaamay ee la magac baxay ururka nabadda cagaaran ee Soomaaliyeed Somali Green Peace Association ayaa ka bilaabay in ay ku abuuraan ama ay ku beeraan geedo goobaha muhiimka ah waxaana dhalinyartan ay ku midoobeen in ay ka qayb qaataan qurxinta deegaanka waxayna maanta ay ku beereen ku dhawaad 50 geed jaamacadda ummadda Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka nabadda cagaaran Maxamed Cabdullaahi Buule ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay in lagu beero geedo goobaha muhiimka iyo waxyaabaha ku dhaliyay muddo ku dhow 3 bilood ayaa waxaan sameynay barnaamijkan oo aan ugu magac darnay Somali Green Peace Association oo ah ururka nabadda cagaaran ee Soomaaliyeed kaas oo isku xilqaamay soo celinta bilicdii quruxda badneyd ee lahayd caasimadda Soomaaliya iyo dhammaan goboladii dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan bilownay dhirbeeris aan ku badbaadinayno deegaanka iyo dadkaba dhirtu waxaan ogsoonahay in ay ahmiyada koowaad ay tahay ama bani aadamku uu leeyahay ay tahay deegaankuna wuxuu u baahan yahay in uu helo dhir ka badbaadiya xaalad walba oo soo wajihi karta dhulka iyo dadkaba saas darteed waxaan bilownay dhirbeeris aan ugu magac darnay beerista dhirta cagaaran iyo badbaadinta deegaanka hal haysta ugu badan aan isticmaalnana waxay tahay Make Somalia a Green Nation oo ah Soomaaliya oo noqota qaran cagaaran waa hamiga ugu weyn aan leenahay maanta waxaan taaganahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybta Gahayr waxaan maanta aan iskeena aan iskugu xilqaanay in aan ku beerno ku dhawaad 50 geed aan ugu deeqnay jaamacadda annagoo cid taakuleen gaar ah aanan ka helaynin laakiin annaga aan isku xilqaanay jaabkeenana aan contribution ka sameynay aanan u ogolaanay in aan la qaybsano jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee tahay jaamacadda qaranka Soomaaliyeed dhalinyartan ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadanayaan sidii door weyn ay ugu qaadan lahaayeen beerista dhirta iyo dhowrista deegaanka si dhulku u noqdo doog aad u qurux badan Soomaaliya ayaa burburkii kadib wajahaysay xaalufinta dhirta laakiin dawladda Soomaaliya ayaa mamnuucday xaalufinta dhirta iyo deegaanka waxaana jirtay qaraar ay qaramada midoobay ka soo saartay arintan Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.